ayadu waxay tiri waxaa iga ballana laba waqti uun inaan guursado. wuu guursaday markii la yidhaahdo ama wuu dhintay, labada un baan guursan. ee adigu maxaa kaa ballana? anna waxaan idhi ballankaagaa ii ballana. waxaanun guursan haddaan maqlo Umu Talxa way dhimatay ama way guursato ballankii bay ka baxday. ex control afgooye ayaan isku macasalaameynay. sheekh Abu Talxa waxaan jecelnahay inaan marka hore barnaamijka ku furanno isbarasho maadaama jalsadani ay tahay jalsada ugu horeysa. marka hore waa kuma sheekh Abu Talxa, magacaaga oo saddexan, halkii aad ku dhalatay iyo barbaarkaagiiba. soo dhawow. si qaas waxaan kaaga codsanahay inaad noogu darto jawaabahaaga sababtii ay kuugu baxday naaneesta ama marka kuniyada aad caanka ku tahay ee Abu Talxa. soo dhawow. xaqan wa xaqiiqatan ma fududo mana sahlano qofku inuu daatadiisa iyo shakhsiyadiisa ka sheekeeyo. hase yeeshee magacaygu waa Maxamuud Sheekh Xasan Sheekh Aadam Sheekh Ibraahim oo ku magac dheer Abu Talxa. Kamaaludiinow magacan Abu Talxa qisuu leeyahay, waana markii ugu horeysay oo bulshadayda Soomaaliyeed la wadaagayo. idinkuna waxaad nasiib u hesheen inaad noqotaan ka idaacati alqur'aani alkariim warbaahintii ugu horeysay ee iga dalbata inaan u sharxo magacan see ku yimid. horta magacan anigu ma bixinin, magacan xaaska ayaa bixisay. waxay bixisay intayna xaas noqonin. aniga iyo dadka iga waaweyn wakhtigayagii xaaladda wada sheekaysiga iyo shukaansiga iyo isxodxodashadu magacaa doonto u bixiyo warqadaa laysu qori jiray. gabadha waxay bilowday inay warqad markay qorayso ay dhahdo ka Umu Talxata ku Abu Talxata, saasaana warqadaha loo qori jiray ka ku. malaha qalbi wax jeclaaday, wax ka soo burqaday oo alle uu qadaray baa jira, annaguse ma ogin. anna warqadda markaan soo celinayo ka iyo ku'da un baan ku soo celinayay. xaaladda oo meel wanaagsan noo maraysa ayuu dagaalkii Soomaaliya ka dhacay ee lagu kala yaacay baa dhacay. mar haddii la kala qaxay, xaalku siduu noqon doonaa aanan ogeyn, ballan iyo cahdi baanu gabadhi kala gallay. maxaa kaa ballana? waa la kala qaxayaaye. ayadu waxay tiri waxaa iga ballana laba waqti uun inaan guursado. wuu guursaday markii la yidhaahdo ama wuu dhintay, labada un baan guursan. ee adigu maxaa kaa ballana? anna waxaan idhi ballankaagaa ii ballana. waxaanun guursan haddaan maqlo Umu Talxa way dhimatay ama way guursato ballankii bay ka baxday. ex control afgooye ayaan isku macasalaameynay. maxaad u malaynaysaan? xaaladani xaggay ku dambayn doontaa? 91dii ilaa 2dii ilaa 3dii waanu kala maqnay. yaa dhinta iyo yaa nool isma aanan ogeyn. 93dii aakhirkeedii baanu maqal ismaqallay. 94tii bartamaheedii ayuu meherka iyagu dhacay. rabbina na kulmiyey subxaanahu wa tacaala. calooshase ilmo ayaa galay. tolow yaa galay. maanan u tegin dhakhtar. 4 bilood iyo ka badan ilmuhu markuu yahay waxaa kuu bannaan inaad dhakhtar u tegi karto oo dhihi karto ii baadha ma wiilbaa mise waa gabadh, wax dhibaato ah ma jiro. ma aanan raadsanin. shinkeedii markuu dhammaaday, sagaalaadkeedii markuu dhammaaday, habeenada ka mida annagoo akhriyayna 2 kitaab oo taariikhda saxaabada ka warrama, fadaa'isha saxaabada ka warrama,
kitaab waxaa la yidhahdaa alisaaba fi tamyiizi asaxaaba ibn xajar casqalaani baa iskale. kitaabna waxaa la yidhahdaa alistaycaab fi macrifati alasxaab, waxaa iskale ibn cabdilbar ayaa iska leh raximahum ullah. anigu waxaan aqrinaya alisaaba, ayadana waxay aqriyeysay alistaycaab. labaduba waxaanu aqriyeynay qisada saxaabiga abu talxa. ayadoo mar bay aqriyeysay, anna mar baan aqrinayay. xaaladdu ayadoy nuucaa tahay fooshu qabatay, isbitaalkaanu oola cararay. alle wuxuu qadaray in ay talxa dhasho. sidaas baana abu talxa iyo umu talxa ay ku yimaadeen. allah waxaan weydiisanaynaa inuu awlaaddeena noo xifdiyo oo noo wada ilaaliyo.